ilaahay baynu ku jeero mahadnaqaynaa halkan iskugu keenay maalintii aniga xilka la igu wareejinayay waxa xilka la igu wareejiyay hoolka wasaaradda arrimaha gudaha maalinta waxaan yiri miyaan wasaaradda maaliyadda hool lahayn waa wasaaradda ugu weyneyd wasaaradaha maanta alxamdulillah hool ay wasaaradda maaliyaddu leedahay oo sharaf loo kii kun jeer ka qurux badan ayay ku wareegsanayna runtii waxyaabo badan inaan ka hadlo ma jeclayn laakiinse maadaama wasiir ku-xigeenku uu xoogaa ila taataabtay ana waan taataabanaya waxaan taabanayaa dawladda kulmiye markay la wareegtay aniga waxa laga dhigay wasiirka waxbarashada waxaan soo fadhiistay xafiiska buugaagtii ardayda loo qaybin lahaayoo dabadda taala oo laga tallaabsanayo iyo wasaaradda dadkeegii oo dhan oo mushahar qaadan 4 bilood way suuroobi weyday inaan wax dhaqaajiyo way suuroobi weyday inaan qof canaanto way suuroobi weyday inaan qof aan mushahar 4 bilood qaadan inaad la hadasho way adkaatay waxaan ku yiri xafiiskii aan soo fadhiistay guluubku ka gubto waxaan ku yiri xisaabiyiintaan u yeedhay waa madow meesha iyo guluubka inaga bedel wuxuu yiri UNICEF baan weydiin waxaan ku yiri iska daayo boorsadayda ayaan ka saaray waa $1 guluubku buugaagtiina halkii intaan ka ururinay ayaan dib lacag ugu raadinay si ardayda loogu qaybiyo horta marka dawladda kulmiye 4 qofna may taajirsiin 2 qofna may taajirsiin ee waxay wadanka horumar bay gaarsiisay shaqaalaha ka daa waayo ilaa waxaan ka xanaaqsanaa dhowr cisho imika wasiirra dhalinyaro ah oo ku faraxsanaa aad baan ugu faraxsanaa waayo markaan anu idin shaqo ma qaban karo waxaan dhalinyaro hala doorto dhalinyaro shaqada qaban kartaa waxaan uga jeeday dhalinyaradu 7 sano markaad wasiir tahay ee daasho ee safaraad ka daasho ee dhibaataad ka daasho waxa dareemaysaa qofka dhalinyaradii inuu isagu waxyaabaha iyo wax ka badan qaban karo oo uu aqligiisa iyo xuduudiisuba ay ka cusub yihiin qofka weyn marka waan ka xanaaqsan waxaan lahaa bal qof wasiirkii tagay hadii la caayo kii imanayayna aniga qaarigu khasbayaan wasiiradu waa ku adeerin la keenay ma eriin way kugula murmayaan website-yaday ku qorayaan waxa weeyaan umadu ha ka waantowdo dadka ilaahay u xulay ilaahay baa xula dadka wasiirka imika la keenay ilaahay baa u qadaray inuu noqdo laakiin hadad cay ku bilowdaan isagoon waxba bilaabin isagoon shaqaynin halka ka taageer lahaydeen eedulan lahaydeen waa dhalinyaro hal hareer galo hal caawiyo hambaliyo hal yiraahdo horta waa ceeb waxaan ugu iyadana u sheegayaa dhalinyarada inaanay waxa ka cadhoonin inaanay shaqadooda waxba dhibaato ku keenin inay hore u socdaan oo shaqeeyaan waxa mahmaah carabiga jirto la yiraahdo wuxuu yidhi nin carabi wala caay jiray marka wuxuu yidhi khadibani asfihu bikulli safahatin qofka waxa waa safiih wuxuu yidhi khadibani asfihu bikulli safahatin qofkii safiihu aybu igu caaya wala uriidu an asiidahu safahatan anama doonayo inaan ana ay ku kordhiyo yasiidu safahatan wa asiidu xilman markuu ay kordhiyaba ana dulqaad baan kordhiyaa kacuudin saadahu alxirq diiba qoriga cuudka marka dabka lagu rido udgoon buu keenaa waa qori lagu dab lagu rido oo udgoon keenay qofka safiihe dadka caaya marka laga aamuso ee la hadlin marka iyagana waxaan leeyahay yaanay jabidi ku ridin shaqadiina wata aad baan madaxweynaha ugu hambalyeynaya inuu dhalinyaro wasiir ka dhigay aad baan ugu hambalyeynaya inuu ka dhaweeyay wixii uu ku ballan qaaday aad baan ugu hambalyeynaya inuu wasaaraddeeda 4 qof oo kamid ah ay wasiir yihiin farxad bay tahay marka waxaan jeclahay inaan u guda galo markii wasaaradani markaan daydii ka soo bilaabo halka yareen ku kala wareegaynay waxay gaadhay heer maanta ay marayso wasaaradaha maaliyadda adduunka inay la mid noqoto inay ka jawaabto baahiyaha degdega ee wadanka ka yimaada inay ka jawaabi karto inay maanta muuqato markii dawladda kulmiye 100% baa la kordhiyay mushaharkii shaqaalaha ciidamadii qaranka ee ogeydeen ilaa subeehiga ahaa darajooyin baa la siiyay waxa weeyaan waxaynu doonaynaa waxaynu qabanayno halka ka sii wadno bini aadam baynu nahay wax way xumaanayaan wax way khaldanayaan lama odhanayo bini aadamku waa 100% waa wax walba uu hagaajinaya laakiin se waxa fiican in halka laga sii wado
wasaaradda maaliyaddu dhismayaasheeda weliba meelaha madaxweynihii hore Axmed Siilaan uu nagala ballamay uu yiri wajahada Soomaaliland laga soo galo waa inay muuqaal qurux badan yeelataa waxa weeyaan waxaan tagay loo yacdo waxa la yiri waxa la dhigay 57kii baa la dhisay guriga ay maaliyaddu leedahay markaas waliba lagu dagaalamo qolo Faransiis soo weerartay mar caruur laaftuubay dabeedna meel gabiga waa isleeday kugu soo dumaysaa markaad gasho ayaa la dhex fadhiyaa imikana waxaanu dhisnay wasaarad qurux badan oo qoladii Djibouti ay u daawasho yimaadeen oo u qalanta Somaliland oo intaas oo sanado xiray wajaalan iyana tagay markii aan wasaaradda la wareegon soo eeg iyana 4 dargadood oo saf ku jira oo inamada ka shaqeeyana sanduuq yar oo bir lacagta ku ururiyaan iyo documentska iyadana waan ka bedelno waxaanu ka dhisnay runtii meel u qalanta Somaliland muuqaalkeega marka Ethiopia laga soo talaabo ee la soo galo wajaale in la arko inay tahay meel u qalanta wadan inta sheeganayna Somaliland xor yahay oo inta keligii taagna oo aan cidin caawin Somaliland waxay ka wanaagsan tahay adduunka meelo badan oo runtii in badan soo jiray oo ictiraafaystay waayo mushaharka shaqaalaheena ilaa ciidan ilaa askar ilaa macallin ilaa qof kasta ilaa qofka biyatooniga dawladda bixisa waxa lagu bixiyaa waa cashuurta ummaddu keento haddaan cashuurta ummaddu keento aan si fiican loo isticmaalayn dadku horta cashuur bay bixiyeen waxaan ku hambalyeynaya wasiiradii iga horeeyay isbedelay Maxamed Xaashi waa ninka baray dadku inay cashuurta bixiyaan waayo dawladii hore wadib dhibaato kale kuma dhicin waxa weeyaan cashuurtu maali dadku bixinay laakiin isagu wuxuu khasab kaga dhigay isagoon eegin walaalkii wala adeerkii wala qof axsaan cidna aanu galay buu cashuurta si siman dadka u baray inay bixiyaan cashuurtii oo la bixiyo ayaa wasiiradii kalena ay meesha qabteen waxa maanta wasaaradda maaliyaddu ay ku faanaysaa horta deyn lagu leeyahay ma jirto deynta waxa wasaaradda dadku waxay iska lahaayeen baryahan oo dhan deyn baa la wareejinaya deyntu waxa intaan imika dhaqaaqo anigoo wasiirkii maaliyadda bakhaar intaan taga ma oran karo 2 milyan amaahi qofnayga amaahi soo maaha deynta la sheegay wasaaradda lagu yeeshay ama dawladda lagu yeeshay waxa weeyaan tiyo mushaharka la bixin kari waayo ama raashinka ciidamada la bixin kari waayo ama safaaradaheena mushaharkooga la bixin waayo ama satellite-ka lacagtiisa la bixin waayo raashinka maxaabiista la bixin waayo waxyaabo badan oo yacni aydan idinku war hayno bil walba joogta ah ayaa jira oo ay dadku iska asiyum gareeyeen maadaama adhigi istaagay maadaama abaara dhaceen dawladdu wixii may bixin horta waanu bixino November mushaharkeega waa la qaatay November shidaaladeedii waa la qaatay no stationery-geegii waa la siiyay dadka Allahumma salli ala Muhammad raashinkii ciidamada November lama siin laakiinse September way u dhamaatay November baa la siinayaa waxa socda mooyaane ciidam safaaradaheena oo dhan mushaharkii waa loo diray satellite-ka oo ahayd dawladda kulmiye wixii la dhasho saahida ila meeyna lahayn jirin TV la tartama kuwa private-ka isagana joogta lacag loogu diraa shaqaalaha dibadda iyo satellite-ka kiradiisaba wixii waxa wada bixiyay wax deyno maanta la leeyahay wasiirka aan hambalyeynayaan leeyahay ku soo dhawow iyo wasiir ku xigeenka ayaa idin sugaysaa horta ma jirto waxa kale oo sameeynay anuu 2 sano joogay 5 sano hore horta lacag wala soo daabici jiray oo sicir bararka idina kama marmayso sicir bararku de waa kan in hor taagan laakiin 5 sanaba marna baahi baa keento lacag baa jirin oo waa markuu wasiirkii u horeeyay joogay intii damana waxa iska noqotay dakhli fudud oo imanaya laakiin aanu 2 sano joogay waan joojiyay in lacag la soo daabaco waxaan wasiirada ka rajaynayaa in lacagta daabacaadeen
aynaan u baahnayn waayo iyadoo labadii sannadood lacag la daabicin intii aan joogay ayaa haddana mushaharkii bil walba la bixiyaa umaynaan baahan inaynu lacag soo daabacno waddanka sicir barar kale kusii kordhisaa waxaa u habaysan oo aan wasaaradda maaliyaddu ama wasaaradahoo dhani imika aan musuqba ka imanaynin BFM-ku wuxuu waa sida adduunku u shaqeeyo waxa weeyaan 2+2 haddaad khalado 3 qorto ama 4 qorto systemkaas soo celinaya qofba isma arkaysaan computerkaas soo celinaya ama casayn haddii la yidhaahdo sidii wasaaraduhu odhan jireen noo sii caseeyay deynta inta badan geli jirtay iyadana systemkaas soo celinaya hadduu food buugu madhan yahoon lacag ku jirin wasaaradda caawiya berri hadday dhulka isla dhacaan systemku wuu soo celinaya systemka waxa weeyaan nasiib wanaag ilaa dhowr iyo 10 sano waddankeena ay nagu khasbayeen hay-aduhu oo lahaayeen macaawinooyinka waan idin kordhinaynaaye ha la ansixiyo waxaan ku guuleysanay inaanu systemka ansixino waxaa nasiib wanaag ah awoodda wasiirka maaliyaddu way yaraanaysaa waxaa loogu diidaya waxa weeyaan awoodda uu ku leeyahay hanti dhowrka xataa madaxweynuhu baa yaraanaysaa waayo wuxuu systemkaasu fasaxayaa inaan cidina cid aanay ku khasbi karin waxaanay inay meel baadho ama ay meel galaan waxaa la samaynayaa xitaa wasiirka maaliyadda awooddiisa yaraynaya revenue authority baa la samaynayaa waxyaabo badan oo runtii adduunkuna inoogu soo joogsaday ayaa lagu ansixiyey oo aan ugu mahadnaqayaa golaha wasiirada golaha wakiiladu inay noo ansixiyeen oo imika lagu shaqeeyaa oo isaguna aan meel laba laga mari karin qofka is yiraahdo in uu xeerjajab yar samee xeerjajabkii horta wuu dhamaaday oo ma soconayo waxaa kaloo ila jirta berbere lafteeda wasaaradda maaliyadda waxba kuma lahayn iyana aqal u qalmo wasaaradda maaliyadda ayaa laga dhisay boorame lafteeda waa laga dhisay waxa weeyaan wasaaradda maaliyaddu waxay awood u yeelatay inay abaaraha ka jawaabto inay berigii dhaweyd abaarihii dhacay lacag aan lagu talagelin oo budgetka ku jirin oo ka badantii ay budgetka ugu jirtay inay bixiyaan inay ka jawaabaan dhibaatadii dhacday oo dhan waxay kaloo wasaaradda maaliyaddu awood u yeelatay inay ka qayb gasho diiwaangelintii madaniga hay'adda lacagteeda bixisay waxay kaloo bixisay doorashadu inoomay suurtowdeen haddaanay wasaaradda maaliyaddu guntiga wax ku hayn haddaanay lacag aanay haysan markii la yiri 10 milyan ha bixiso dawladda Soomaaliland haddii kala doorashadii dib ay u dhacaysaa hadhowna idin kala ku caaya la oranaya ictiraaf baa sheegtay xitaa macaawinada la idinka goynaya waxay wasaaradda maaliyadda iyo dawladdu oo madaxweynihii hore u horeeya aanu goosanay inaanu 10 milyan bixino waanaanu bixinay maanta waa taa aynu sharafta ku leenahay eed arkaysay wixii nooga soo wixii dadka soo qayb galay in sida la inoogu hanweeyay imika uu BFM-ka ka hadlayay World Bank ku yiraahdeen waanu kordhinay haddana waxaan idin sheegayaa wasaaradda maaliyaddu may dhisteen inta guriga cusub ay imika 3 bilood u dambeeyay dhistay haddii deyni jirto oo iyana waa yarayaaba waxaan la yaabaa dadka iska qoraya in deyn baa wasaaradda maaliyaddu wareejinaysa taa waan idin cadeeyay wax deyn oo la yiraahdaa ma jirto waxa weeyaan wasaaradda maaliyaddu system bay ku shaqaysaa transparent oo wada tashiya oo aanu keligii wasiirku wax goosan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadka wasaaradda maaliyadda ka shaqeeya waa dad runtii de waxaba muuqata waxa wasiirada looga qaatay waa dad xula waa dad shaqada yaqaana waa dad runtii ay ka go'an tahay inay dakhli soo saaraan aroortii markaan indhaha kala qaad salaada subax markaan tukado telefoonada waxaan ku dhuftaa gurxan wuu fadhiyaa berbera wuu qaatiyaan bilaash inta marka salaada aan salaam calaykum salaam quraanka akhriyo isagaan la hadlaa isaguna wuu soo jeedaa masaajidku ku jiraayo wuxuu ii sheegaa wixii dakhli maalintaa qabtay kala baydh dakhligii soo yeedhisaa airportka Hargeysa dakhliguu soo yeedhiyaa markaan dakhliyada soo wada ururiyeen telefoonku soo urursado ayaan bahjiyo xisaabiyaha iyo kaysala hadlaa markaasaan idaa saaka intaasaa soo xarootay markaasaan bangiga hadday joogaan la hadlaa waa aroortii un intaasu annagoo og aroor walba dakhliga yaala iyo kii hore noo yaalay inta aroortaas soo gashay
ayaanu xafiiska soo fadhiisanaa si aanu u qorshayno cabdikariimna aad baan ugu mahadnaqayaa waa dadka had iyo jeer ilaaninkuu joogaa waa dadka aan la xidhiidho inay noo sheegaan wixii hoos u dhicu ku yimid waayo sanadkan waxayna soo maray waqti adag runtii dakhligu hoos buu dhacay wuxuu hoos ugu dhacay abaartii raashin bilaashaynu qaybinay wax kala iibsigii baa yaraaday dadkii wax iibsanayayba waa abaar baa ku dhacday dabeedna wixii soo degayayna way yaraadeen waxaa kaloo ku soo kordhay markaynu abaartii ka soo haddana laabanay waxaa dhacday in Itoobiya Oromadii iyo aduu khilaaf ka dhacay dabeedna Oromadii wajaale wax ka guuranaysay wax ka iibsanaysay iyana ma timaado dabeedna halkaana dakhli badan ayay nagaga lumo bakhaarradii ama berberaha ahaadaan ama airportka Hargeysa ahaadaan waa buuxaan oo runtii iyana dhibaatay noqotay waxaan kaloon halkan runtii aan jeclay inaan busiisna miyuu fadhiya busina dakhliga aroor walba oo kala xisaabtama inuu soo ururiyo Hargeysa iyo inanka berbera jooga runtii inta dakhliyada soo ururiya had iyo jeer aad baan ugu mahadnaqayaa sida fiican ee dadaal kale ee ay noola shaqeeyeen waxaan kaloon u mahadnaqayaa qolada turbantaariyada oo runtii iyaguna aad iyo aad si mugle noola shaqeeyay runtii anu wasaaradda maaliyadda haddaan idhaahdo isku duubahaan qof aan isleeyahay maalin buu ku xaaqiraday ama waxbuu kula qaban waayay horta kuma jiro runtii cashuuraha beriga salaadaban maalimaha qaar lixdiiba maalin bay ugu yeedeen waa lixdiiba barkii wasiire ciidama imane ma waxa weeyaan iyaguna runtii aad iyo aad bay noola shaqeeyeen inanta amran la yiraahdo iyana ee xisaabaadka guud runtii aad dadka haddaan isiraado tiri waxa weeyaan waxaan kama baxaya maanta oo dhan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadka ka shaqeeya wasaaradda maaliyadda oo runtii aan isleeyahay maantana wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka oo kolligoogii ah oo dadkii la shaqeynaya ah oo hadday fashilmaan aan wasaaradda maaliyadda dib qof looga qaadanayo wasiir dambe inaad taageertaan ishareer taagtaan la shaqaysaan aad wax la qabataan si aad ila shaqeynayseen aad ula shaqaysaan bishan waxa la bilaabayaa mushaharku maalintii aniga wasiirka maaliyadda laga dhigay wuxuu ahaa 47 bilyan maantana waxa weeyaan 83 bilyan 83 bilyan sida lagu helaa waa si adag waxa weeyaan waa advisors badan oo imika aan u malaynayay inay soo kala yaraadeen ilaahay khayr ha siiye madaxweynaha cusub maxamed muuse biixi cabdi uu kala yareeyay wasaaradihii iyo wixii halka lacag badan baa ka hari doonta laakiinse imika taanu bixinaa waa 380 bilyan oo ay adag tahay inta bisha kowdeeda la bilaabo ilaa 20keega la sugayo inay kolba biirto deedna ciidamada la siidaa mar boqol la siidaayo tii way bilaabantay imika December ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaanay inagu go'in in mushaharkana la bixiyo ciidamada raashinkooda iyo waxa haray oo dhan la bixiyo safaaradaha iyo meelaha kirooyinka laga saaray runtii insha Allah waayo team u carbisan ayaa jooga oo waxa ka shaqeyn kara waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Cabdi Casiis oo miisaaniyadda jooga waxa weeyaan habeen iyo maalin Cabdi Casiis miisaaniyadda kama seexan Cabdi Casiis miisaaniyadda khabiir buu ku yahay waa qofka ugu khabiirsan miisaaniyadda marka la sameeyo waxaanu sameeynay miisaaniyadda PF-ku wuxuu sheegayaa inay baarlamaanku kula nala sameeyaan deedna shuruucdii maadaama la sameeyay baarlamaanku inala diyaariyeen diyaar bay ahayd imika labadii bilood u dambeeyay waxa ay idin baarlamaanka la geeyo oo la ansixiyo maanan geyn laakiinse waxaan ugu geen weynay dawladda cusub aanu siniri kulli waxba isbedeli doonee waxa lagu hagaajiyo miisaaniyadu inta badan waa sideedii laakiinse 10 milyan oo kamid ah waxa loo qoondeeyay in lagu mashaariic loogu abuuro dhalinyarada waayo madaxweynaha cusub wuxuu ku dhawaaqay madaxweynuhu inuu dhalinyarada shaqo abuur u sameeyo si uu shaqo abuurka u sameeyo 10 milyan waxaan loo kayd garaynay in mashaariicda runtii loogu diyaar garoobo waxa kaliya inuu kordhino waxa weeye xisbiyada oo 50% ugu kordhinay iyagana si ay iyaguna u hana qaadaan oo aanay dadka ugu soo noqon markay bari galayaan tartanaanay oo lacagna siiyay tooda meel dhigtaan isku filaysiiyaan runtii iyagana waan ugu sameeynay miisaaniyadu waa naga diyaar waxaan marka waxaan isleeyahay wasaaradda haday gaadiid tahay
iyo hadday dhismayaaltay gaadiid cusub bay wasaaraddu imika wada leedahay gaadiidkii hore waa intoodii badnayd offroad bay noqdeen gaadiidkii cusbaa iyo dhismayaashii cusbaa iyo wixii lagu kordhiyey hadday ceelal biyo tahay wasaaraddu waxay maaliyaddu ka turjuntay iyada wixii ay ku shaqaynaysay ee ahaa lama filaan wax leh waayo anu 5 sano wasiirka waxbarashada ma aha labadii budget markaan isku eegay waxaan budget arkay xoog u ballaaran oo martiqaad lama filaan waxyaabo halkii wasaaradii waxbarashadana $1,000 aha oo halkana lacag badan runtii waxaan uga faa'iideeyay ummadii cashuurta bixinaysay waxaan bixiyay 19 ambulance 19 ka ambulance waxaan ka soo bilaabay si xaqana ugu qaybiyay waxaan ka soo bilaabay ee shacabda meesha leedo ee shacabdu waa meel wada xun dadka abeesadu ku cunto oo rafaada oo runtii habeen aan u hoyday ay gabadhi umul isku gooday dabeedna waxaan ambulance iyo MCH baan u dhisnay waxaan ku soo xigsiiyay lughaya oo yana sida uu wada xun lughayana ambulance cusub baan u siinay waxaan ku soo xigsiiyay meesha leedo qulujeed baa yana mid la siiyay deedna dilaa la siiyay wajaala la siiyay wadama kaahil baa la siiyay faraweyna la siiyay agabar baa la siiyay balugubad la siiyay balli mataan baa la siiyay saba wanaag baa la siiyay dacar buruq baa la siiyay dhagax dheer baa la siiyay waxa la siiyay xaaji saalax waxa lacagta caafimaadka laga iibinay waa wasaaradda maaliyadda budgetkeedii waxaanu siinay qorulugud waxaanu siinay wirwid waxaanu siinay isbitaalka Hargeysa 2 accidents and emergency aanu ugu talagalay markii aanu dhisnay meesha ICU-da waxa weeyaan ceelasha ay qoday wasaaradda maaliyaddu intooda badan waxay ka qoday budgetkeeda wajaale waxaanu in bay soo gaarsiisay EU-du annaguna 500,000 baan ugu deernay oo lagu gaarsiiyay wajaale biyaha waxaanu meelo badan bay wasaaradda maaliyaddu ay hawlo badan ka qabatay hawlaha waxaan isleeyahay insha Allah ilaahay idinkii dhalinyarada maanta timi ayaa halkii ka sii hana qaadi doonta oo eegi doona baahiyaha kale waayo anigu xitaa safarkii u dambeeyay imika aan tagay loo yacdo dirqiyo tuxubay ugu ahaa madaxweynaha waanu ka wada hadalay anigu waa daali runta marka la sheego wala civil society ayaa wuxuu tarayaa imika wala waxa uu tarayaa meel kale runtii qofku markuu daalo waa inuu naftiisa nasiyaa oo isagu u taliyaa naftiisa inuu isagu u taliyo weeyaan in cid u taliso maaha runtii anigu intii aan la soo shaqeeyay iyo dadkii aan la soo shaqeeyayna aad iyo aad ilaahay bay guma beerin qof xun wasaaradda waxbarashada markaan ka shaqeynayayna dad wanaagsan baan la shaqeynayay marka civil society-ga ahaana dad wanaagsan baan la shaqeynayay imikoon maaliyadda la shaqeynayna dad wanaagsan oo aad Omar oo customisko iyaan saacadaha u dambeeyay ilaada orado kala bayd waxba ka jirata runtii aad iyo aad baan dadka u hambalyeynaya Sayla waxa noo jooga nin Faysal la yiraahdo oo runtii aad iyo aad meesha uga shaqeeyay oo aad u hagaajiyay oo wixii kontraba halka ka iman jiray hal lagu xanaaqo hal la diido magaciisa u bixiyeen maalintii dhaweydaan tagay waxay magafa la yiraahdaa waan ku farxo waxaan magafa dakhligu ii soo xareeya waxba iga meegelin anaga waxa naga dhaxeeya waa dakhli qofka dakhli baa naga dhaxeeya haduu dakhliga soo xareeyo wuxuu doono magaciisa doonaha loo bixiyo waayo wuxuu dhisay xayndaab weyn oo halkii kontrabaaka laga soo gelinaya badda uu kaga xiray dabeedna dad badan way ka xanaaqeen laakiin sameeyna bixin kareen mushahar hadaynu aynaan eegin inaynu kontrabaanka iyo waxyaalaha iska joojino maynaan bixin kareen mushaharooyinka waxaan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka aan leeyahay haloo duceeyo anigu maalintii aan wasiirka la ii dhiibay eray kale ma oran khudbada ma jeedina waxaan yiri maqal dukaan hadaad qof u hayso soo 100 jeer kuma xisaabinayo habeenkii bal adigoo ummadoo dhan maqalkooga haya waxa weeyaan ifii aakhiraba way adag tahay waa lagu la xisaabtamaya waa lagu caayaya qaar baa oranay khasnadii baa lacagtii laga la baxay way hadda khasnad systemkeenuba voucher qofka wasaaradda maaliyadda ku yeesho baa yaqaanay ilaa audit ilaa xisaabaad ilaa intuu maanta oo dhan wareegayo ayuu bangiga marka u dambaysa tagaa qofna lacag intaan maanta dhaqaaqo 5,000 kala bixi kara banka wax systemkeena oo galino wax impossible laakiin dadkeenu way iska daba socdaan wuxuu uga ilaashanayaan kuma caayino laakiin waa in feejignaanta ay yeeshaan waa wax wanaagsan waxaan leeyahay
هلو دعيو يقول هدو عيستان وهي لهذا ومدى هوي ديستان مقال كان نو ديبي إنه إلهي نقو أسترو نو دعيه ما نتي ليدي بي حلك أرجع صانيلي إسلام أنمي قلت وحيدا وأنا كي كنت عيني تسود عادي ما ذي ما نتي تي فيجا مركع الحمد لله عاد درك عيار معها وحنا نقول قلت عيني إن ماذا سؤالي كوكشف من وإلهي عاويه ومدى وحيجا مقال كأمد أيوهيان إلهي كحلترو وأنا وحبك باقا وأنا سود وينيا آدي بدو مهسنتين خليها لقى هذا ده إلى الله وسيرها من الله ويسلك آدي gaadiidka ambalaasiyadoo dhan ninka nambarada u soo goynayay ee maalintii dhawaa markuu auditku loo yimid uu yidhi ambalaasyadii qaar baanaan hayn nambaradoodii soo wada saaray u dhiibay waa isaga runtii aad baan ugu wada mahadnaqayaa wasaaradda waxaan u mahadnaqayaa Leila iyo Cabdilaahi oo xoghayntayda ahaa oo runtii aad iyo aad u shaqaynayay waxaan u mahadnaqayaa cashuuraha beriga ويقول أد نول شقية رنتي أو سوى ناكسن أو أضيتين مع نول شقية أو خضري مكتوبه أد بنديسو ودوينية أد بدو مهسنتين أنسكو سود عينه خير بين سكوبنا والسلام عليكم ورحمة الله.